بسم الله الرحمن الرحيم داود الورد دقدق عبد الجليل شوية la socotaan xiisado siyaasadeed oo cusub ayaa ka dhex qarxay villa Soomaaliya iyo waxgaradka SSC Khaatuma taas oo salka ku haysa booqashadii maanta uu ku tagay Ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdi Barre magaalada Laascaanood ee xarunta dowlad goboleedka ku meel gaarka ah ee SSC Khaatuma wax walba ayaa isbedel kadib hadal lama filaan ah oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta jeediyay isagoona sheegay in Ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu tagay magaalada Laascaanood in uu xal u raadiyo khilaafka ka dhex taagan SSC Khaatuma iyo Somaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay maanta Antalya Forum ayaa sheegay in halkaasi uu Ra'iisul Xamse Cabdi Barre u tagay si loo qaboojiyo xiisada SSC Khaatuma iyo Somaliland wuxuuna yiri Ra'iisul wuxuu halkaasi u joogaa in uu xal raadiyo khilaafka wali lama xalin uu hursan yahay labada dhinacna maxaabiis ay kala haystaan ujeedadu waa in la abuuro jawi wada hadal dhab ah maadaama ay jiraan caqabado hortaagan in si toos ah la isu horfariisto ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadalkan ayaa si weyn ugu hor yimid dareenka shacabka SSC Khaatuma oo sugay aqoonsi rasmi ah oo ay ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo matalaad dhab ah oo ay ku yeeshaan madasha wada tashiga qaranka garaad Mukhtaar garaad Cali oo kamid ah simada ugu saameynta badan SSC Khaatuma ayaa si kulul ugu jawaabay hadalka maqribkii ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoona fariin adag ku soo qoray bartiisa Twitter-ka garaad Mukhtaar ayaana yiri nimco kasta nusqaanteeda leh madaxweynaha qaranka oo xamili kari waayay soo dhaweyntii heer qaran ee loo sameeyay Ra'iisul Xamse iyo xubnihii xukuumaddiisa ee maanta ka degay Laascaanood ayuu yiri garaad Mukhtaar oo si kulul ugu jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud garaad Mukhtaar waxa uu intaasi ku diray fariinta ku dhex jirta hadalka madaxweynaha waa saddex qodob oo halis ah in shacabka SSC Khaatuma loo aqoonsanayo inay yihiin Somaliland laba in lagu qasbay inay wada hadal la galaan Hargeysa taasoo meesha ka saaraysa jiritaankooda gaarka ah saddex in la isweedaarsanayo maxaabiis taasoo muujinaysa in labada dhinac loo arkayo kuwa ishaya oo siman garaad Mukhtaar ayaa hadalkaasi yiri isagoona u jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta qadiyada si furan ugu hadlay garaad Mukhtaar ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gunaanuday runtii aad baan ugu xumahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caawa dhabarka ka toogtay ra'iisul wasaarihiisa iyo xubnihii kale ee wehelinay isagoona xitaa fursad siin waayay inuu sugo safarka ra'iisul wasaare Xamse dhamaadkiisa ayuu hadalka ku soo gabagabay garaad Mukhtaar oo ka hadlayay dhacdadii maanta ka dhacday Laascaanood iyo hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dabageeyay ra'iisul wasaarihiisa booqashada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadda loo arkaa mid qasan oo faaruq ah iyadoo aan la gaarin wax heshiis ah oo la taaban karo oo ku saabsan aqoonsiga SSC Khaatuma shacabka deegaanka ayaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u arka mid dhaawacay rajada laga qabay booqashada Ra'iisul Xamse Cabdi Barre oo loo arkay inay tahay booqasho taariikhi ah oo uu maanta ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta dowlad goboleedka ku meel gaarka ah ee SSC Khaatuma dadka deegaanka iyo taageerayaasha SSC Khaatuma waxa ay dareensan yihiin in madaxweynaha qaranku booqashada Ra'iisul Xamse Cabdi Barre u arka gogol wada hadal oo lala gala Somaliland isla markaana aysan jirin wax aqoonsi ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u haysa shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka SSC Khaatuma dhammaan arrimahan ay waxay soo baxayaan iyadoo caaw Ra'iisul Xamse Cabdi Barre ku hooyanay magaalada Laascaanood halkaasi oo uu maanta galinkii hore gaaray balse hadda waxaa durba soo baxay khilaaf xoogan oo ka dhex aloosan waxgaradka SSC Khaatuma gaar ahaan afayeenka waxgaradka garaad Mukhtaar iyo villa Soomaaliya iyadoo u aragta booqashada Ra'iisul Xamse Cabdi Barre inay tahay oo kaliya mid lagu wada hadalsinay dhinacyada isla markaana xaaladda lagu daminay taas oo ka fog xaqiiqada iyo waxa ay rabaan shacabka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee ku meel gaarka ah SSC Khaatuma iyagu ka sugay villa Soomaaliya inay cadeyso mowqifkeeda ku aadan jiritaanka shacabka jiritaanka aan idhaahdee ayahooda warkan daawada waxa ka soo kor wararkeena iyo barnaamijyadeena daba ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii uu barhaali ka noqdo habka lacag dirista casriga ah ee Wire Nations waxay ku sahashay inaad lacagta ka soo diri karto dhammaan wadamada Yurub iyo dalka Canada waxaadna lacagta u soo diri kartaa dhammaan dalalka Afrika adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta haddaba ka mid noqo adeegsadayaasha abkan oo kala soo degmaantaba App Store-ka ama Play Store-ka mobilkaaga